aniyaku maanan kaalay haye kalsooniisi say kalaman aniyaku maanan kaalay haye kalsooniisi say kalaman shicib yahow wareersani walwelmiya lagu jiraa wadaajir bay wadar qofood qarax ku qaban karaane wadaajir bay wadar qofood qaraaxiisaga celshaane war ma walaa baa ku jira saaniya tawaawa war annaga noo kale annaga maangaliyo siyaasadeed siin hadda Soomaaliland nahay warnimayo horta aniga Muuse Biixi ayaa ilaa shalay gabay tirinaynay war ma arintii tukaraq baa ka wada hadasheen kaalaya tukaraq horta xal la isugu heestaa wiliga tukaraq waa taagnaa jiriye goorma sadadku tukan naqdeen ku qabsaa hadda xaafad tiri adug war adeero Muuse Biixi ma gabiye garab salaax buu leeyahay war annaga xalay la gabaynayna dhageyso waxaan niri أنا معلم أور ليدر وقبيديدي عرف كلمة يو كان سبيك وريا صومالي قال موسى تو انترفيو هذا الكيو كوبان من تلبروب لان باكود عي دولتي حمر maxaan gabayga uga daalayaa nooma taliyaan Soomaali Carabi Ingiriis Talyaani mi nataka nakono wewe horaan u maqli jira warani warsiin haaye oday siyaasi ah hal minje ingaseedi kome fashiyamo yari mootiyalka ka gobado hayna wari kome indiyamo yari anina maraykanki arabtan lijeedniki doowa soldi wari faas bagareki doowa manjare wari han olol wiinka aamo hayaan wayari kome abni yari sidaad aragaasuuki war kuma dariniyow kaara juuju ku sibeena nisana altaro warada warmaysiine Soomaaliland waxay tiri General Aidid ordaya ayaa Puntland galay oo ciidamo badan wata boosaasay garaw ma laga qaxayhe war Aididkan kii hore maahan Aidid Axmed Nuur baa la yiraahdaa wuxuu ka tirsanaa Soomaaliland asaga ciidankiisina intay Soomaaliland ka soo fikadeen bay Puntland isku dhiibeen arbakaasaad sheegaysa yaahu qoryaha maanta kale 2 sano ka hor markuu madaxweyne farmaajo akhrinayay khudbadiisii musharaxnimada baarlamaanka u jeedinayay wuxuu yiri qofkii qarax ku dhinta maanta kadib magtiisa ana bixinaya qofkii soo sheegana ana abaal marinaya dhismihii ay dunshaana ana dhisaya ilmihii ku agoontoobana ana daryeelaya isweydiiya hadda adinku war arantiyeeda muraayadooyinka ka dalaaday madaxtooyinka dhaxjira war horta adinku war musharax iyo war madaxweyne kala saara hadda waa madaxweyne wuxuu idin dhaha qaad awalna warkiisa war musharax ka soo qaada meesha uga taga wardanaan halkii ay minadu kula kacday saraakiishii hore dalkaal xilkoodii loo dhiibay ayay maantana la kacday marka meesha ma xilka la iska dilinaya mise wax kale ku xasaysan war taliyihii ma aha waxa la dilay waa abaanduulihii 12 Abriil war 12 Abriil oo ciidanka xoogga dabaaldagaal lama gaarin dhageysta labadii jaran Umar Dheere iyo Jamaame arurtii agoonta ay ka tageen waxay yiraahdeen saliidii yaryarayd iyo dufankii waa nagala goosta waxay kaloo inta ku dareen ninkii arinteena madaxweynuhu u xil saaray taleefanku naga dansada aniguna waxaan idin leeyahay qorar daalin iyo afdugaaglayaal mixidaylan oo dhiig doonayo dadka yaga dhamaan dirac iyo halyaan indoor waxa ku jira inay dabar jiraan loo soo diro xaqadii dambana nala diriraye tabaadiga hariya daafaca sharciga abwaan alaan halka daaf awlaado agoonte aan booradiyo afka hor u lisiye kalamaanay ku xukuma Kenya anoo jooga kullinkiina aan dhageysanaye maxaad soo kordhiseen kow war maxaa ka kuma nageeyay aryaadaha madaxweyne Puntland ee Deni ninkii boosaasa lagu dilay BNO madaxda ka ahay eheladiisi iyo qaraabadiisi u taxsiyeeyay I am so sorry miyuu yiri aryamaan joornasiyo yiri cidaanu soorma cunaane warkiiga sug ninka taxsida loo dhigayo Maalto iyo Talyaaniga ka soo jeedaa la yiri laakiin waxaan la yaabanahay madaxweyne Deni dadkii Soomaalida ahaa ee Muqdisho shalay lagu laayay wuxuu uga taxsiyay la yahay wareer Deni Puntland xukumaye madaxdii Soomaalida iyo maamulka gobolka oo walba ku qornaa ambaareynta iyo taxsida ayaa afkooda juuqda gabay war awalba wax qabad la isagama barane dawladdeennii dhamayd oo waa fashilinay iyo waa la daba joogaa iyo waa la baarayaa iyo sharciga loo horkeeni doonaa iyo waa ambaareynayna dhigi jirtay miyaa intiina gabtay aryaa qaraxa waa laga hortagayay ku dhaheen may dheega jiray langi eredil ku dhaw isaag may in dhawtiya ere langi afka dhatiis la dhawaan
xildhibaan yaala iritiyo badliska garahiyo haye saaka dawaayan war anugu niyo ma fahmin war waxa dhamad rabtaan hadday cambaaraynaya taxsii yihiin codadkii madaxda hore duuban soo qaata warkaydkii raadiyo muqdisho waa gubtay inta ka baaraynaa war maxay isu daalinaysaa hadda ka hor nin wuxuu yidhi wakhtigan iyo wareerkan iyo waalidan wala waa cajiib waagii baryo wacdaraha dhacaayo waa lagu waana qaataa warnimada qarax iyo balaayo meesha ay bug ka tiraahdo waxa ugu horey u soo gurmado waa aamin ambalaas war majanan baa ku xukumay marka waxaan la yaabanahay doctor cabdiqaadir waa kan dhahay maalin walba cid garabna siisa ma lehe dawladdu ma kaalmey weyso gurmadkaas hadday wax kala weyday war adeero hormuud dabdamiska cid uga horraysaba ma leh war hormuud kaalmo uma baahnee aamin ambalaas ha la kaalmeeyo war daacish iyo shabaabba qaraxyadan ay baabuurta ku soo rarayaan iyo dadka ay bumbooyinka ka dhiganayaan cid ka kaalmaysa lama arkay hala dulqaato warnimayow boobkii kiniisadda baadariga ee katoliga bob francis wuxuu yidhi dhiigga qubanaya ee yeman iyo soomaaliya masaakiinta lagu xasuuqayo lama aqbali karuu yidhi hala joojiyo waxaan aad uga xumahay marka in baadari noo garaabayo dad muslim sheeganayaana na xasuuqayaan war balaayadu meeshay ka taagantaha waa balcad maamulkeedii eesgalay maantana qaybaa laga saara la yidhi beledka shabaabna bannaanka uu joogaa ciddii laga saar magaalada intaa ijiid iyo ankujiida ku jireen ayaa jenaraal sheegow u yimid war wasiirkii hore amniga xildhibaan cabdirasaaq cumar maxamed waxa uu yidhi waagaa wasiirka amniga ahaa shabaab wadahadalaa noo socday war hadda ka hor wasiirku arrintaan nooma sheegine ma wadahadalka daalibaan iyo maraykanku ku soo xasuusta war annagu wadahadalka eega haddaan somalilan hayaan u raacnaa war wasiirku wadahadalka ma kuwa ajaaniibta howlalaha mise kuwa soomaalida soomaali tala kama go'do kolley waa ajnebiga war soomaalida haan ay laka horkiisadee in qarahadlaa karore ajnabiga kagu taranta war ma haysana dadkii oo dhan baa bahaloobay baynila arrin foolxun baa ka dhacday gabar yaroo 2 bilood jirto ayaa dhegta dhiigga loo daray war calleero ma xukumay waxaana la leeyahay hooyadeeda ka dambaysa falkaas axankeeda cuna miya war ahwal dhali intaas ku uurnugulaa ama lehe halihe war gabar 2 bilood jirta muga la dilaayo xal loo dila ma habartaba la dilo wareedhaha madaxweynihii hore xasan sheekh beledweynuhu taga waxaan u malaynayaa ugaaskii hadda ka horreeyay af garan waayeen ugaas xasan ugaas madaxadde inuu dhihi doono abtiyo uu cid iga ronay markaa dambayne bal arrintaan hoos u dhigno aryaanaha waxaad leedihiin dhegtaa dhiigga loo daro waxaan maqli jira kan sirteena dhiibiyo soomaali waxu dhimee dhegtaa dhiigga loo daray war yaa maadaa u dari kara kaawada ma qof aale mase dad badan baale webiga noo soo duwa yacni dhaxad noo dilaysid gurigiina roob ha gale